بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan rabaa inaan idinla wadaago nolosha sideedaba waa imtixaan. maalin walbana cashir ayaa ku imaanayo. qof kastana wax ayaad ka baranaysaa, laakiin cashirkii aad qaadatay imtixaan ayuu leeyahay. ma ku barmoostay mise waa ku dhacday? waxayna u badan tahay badanaa dadkeena, maadaama aan cashirada nolosha ku saabsan si fiican naloogu wacyigelinin, badanaa imtixaanka ayaa ku dhacnaa. kadibna markaa ku dhacno isla cashirkii oo kale ayaa lagu soo celinayaa ilaa aad ka barmoostid. ilaan ilaahay subxaan allah uu noo sheegay, waana ka sheekeynaa, waana ku hadalnaa, waa dhahnaa nolosha waa imtixaan. marka nolosha hadday imtixaan tahay, imtixaankeedii aaway nolosha. ma aha in aakhiro kaliya nalagu imtixaamayo oo hadhowt in aakhiro nalagu xisaabinayo, laakiin adduunka intaa joogtid ayaa ku kala garan kartaa. hadda aqligaaga kor u qaadid, qof kasta ala kulantina wax ayaa ka baranaysaa. cashiro oo nafsi ahna waa kala qaadanaysaa, ama kaarma ama nafsi ayaa kala guranaysaa. dadka nafsi ay kala qaataan, walaalkaa ha ahaado, waalid ha ahaado, ha ahaado daris, ha ahaado wax iskool kula dhigtay, wax kula shaqeeya, qof kasta gidigoodba meeshaan cashira wada imaanay. filin inaa jileena camal waaye, laakiin waxaa ka dambeeyo. marka maxaa ka baratay meesha waaye, maalin kasta maxaa baratay, maanta maxaa baratay, maanta hebel ayaa la kulantay, maxaa ka baratay. laakiin haddii aadan waxbaba baraninba oo iska socotid, oodan waxbaba adigana isxisaabinin oo iska socotid, dhib ayay noqonaysaa. marka haddaan kuu jilciyo, nolosha waa imtixaan. qof kasta qaladka uu kaa galaana kheyr ayay ku tahay iyo guul. maa inay wax kaa haleeyeen, cashir unbay ku siiyeen, cashiradii imtixaanka waaye. waa inaa ogolaatid oona cafisaa. haddaadan ogolaanin oodan cafinin, waxay noqonaysaa cudur ay kugu noqonaysaa, dhibaata ka qaadaysaa, imtixaankiina waa ku dhacday. marka maadaama wax qadarnaanay ahayd, inkastoo waxa xun oo dhan shaydaan ka ahaaday, qof xun wuxuu kaa haleeyeyna naftiisa iyo shaydaanay ka ahaatay, haddana adiga inaad ku hirkii iyo dabarkii uu ku dhigo ku xarqumatid, oo khudad ka qaadid, oo caafimaad daro ka qaadid, oo barobleen ka qaadid, oo u carootid, oo u xanaaqdid ama caysid, hoogiiba aad ka qaadaysaa. qof kasta oo wax kaa haleeyaane, dardaankeyga waa inaad cafisaa oona weli jeclaataa. hadduu wax haysanina wax siisaa, si uu ilaahay ajarkaaga siiyo. maxaa yeele asaga ilaahay ayaa iska leh. ilaahay wuxuu jecel yahay adoonka cafiska badan, adoonka aan aarsan. ilan ilaahay kuu aaraayo. in lagaaga aaro keliyana muhiim ma aha, dadka in la cafiyo ayaa ka fiican. si kastana jisigooda ilaahay ayaa garanaayo, anaga nalooma dirsan arrimaha qaar. marka waxaa ku leeyahay, haddii aad ratid cashirada imtixaanka nolosha inaad ku barmoostid, mid ka mid ah ayaa tusaale kugu soo qaaday. qof markuu wax kaa haleeyo, cafi, colaad ha u qaadin, ha nacin, hana ka aarsan. waad guuleysanaysaa, waana arki doontaa. ilaahayna dadka ugu jecelyahay ayaad ka mid noqonaysaa. haddii aad ku jirin dambiyada waaweyn, ilaan dambiyo waaweyn ayaa jiro. dambiyada waaweyn markaa kasoo hartid, oo haddana dadkii adiga wax kaa haleeya cafisid, oo haddana soo socotid, oo haddana soo socotid, marka dambe ilaahay ayaa hoosta ka galaysaa. ilaahay markaa aad hoosta ka gashidna xisbigiisa noqonaysaa. ilaahay harkiisa harsanaysaa. ilaahay aad kula jiraayo, malaa'igtiisa kusoo diraya, waad guuleysanaysaa. wax kaa halaabayana male. waxaa noqonaysaa qof guuleystay, qof holin karana aysan jirin, hor u kacay, imtixaankana ku barmoosay. maxaa yeelay anaga waxaa u heesanaa badanaa qofka marka wax laga halaayo, qofka aarsado inuu qof geesi yahay, fiican yahay, fariid yahay. laakiin saas fariidnimo ma ah. waxaa wanaagsan dadka in la cafiyaa, oo aa cafisaa, oo aa cafisaa. hadduusan soo hagaageeninne ka fogaataa, lafaaga ka ilaashataa. haddii kaleeto isku mid unbaa noqonaysiin. haddaa la hargantid oo ka aarsatid oo yeeshid, isku mid ayaa noqonaysiin. hadduu ku caay, hadduu ku dil, hadduu ku yeel, hadduu ku xasad, taas loo waayo hoose u hooseysaa. hoostaas ma u socono, kora u socona. anaga ilaahay xaggiisa aadayna. marka la soco imtixaanka noloshani, maalin walba suu kuu soo wajaho u qaado. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.